Assalaamu calaykum saaxiibayaal waxaan idila wadaagi doonaa wax ka duwan wixii aan horey idinku soo gudbi jirnay kanaalka Rogaal Media sidoo kale ayna adag tahay inaad horey u maqashay waxaan idin soo gudbin doonaa codad dhif iyo naadir ah oo laga diiwaan geliyay dagaaladii koowaad iyo labaad ee adduunka codadkan ayaa laga diiwaan geliyay laga soo bilaabo goobaha dagaalka oo si toos ah loogu duubay iyo codad sir ah oo laga duubay shirarka iyo qolalka qaar ka mid ah kaligitaliyaashii daawade haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir haddii aad horey saaxiib noola ahayna like iyo share basaar muuqaalka si uu saaxiibo badan u gaaro ugana mid noqdo kuwa ugu daawashada badan mahadsanid codadkan qaarkood oo aad la yaabi doonta ayaa waxaynu ku bilaabi doonaa codka tobnaad weerarkii gaaska waxyar ka hor dhamaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka codoobe William Gesber ayaa go'aansaday inuu qalabkiisa wax lagu duubo u qaato dhanka jiida hore ee dagaalka si uu u qabto dhawaqa dagaalka isagoo uu ku guuleystay inuu qabto dhawaqa hubka wax gumaada ee gaaska oo lagu garaacay ciidamada Jarmalka haddaba waxa aad maqlayso waa madaaficda Britishka oo lagu garaacay difaaca Jarmalka dhawaqa aad maqlaysana waa qarax ka dhashay hubka gaaska taasoo lagu burburinayay jiida hore ee Jarmalka toddobaad kadib markii William uu duubay dhawaqa hubkaasi gaaska William ayaa xanuunsaday isagoo ugu dambeyntiina u geeriyooday xanuunkii dhimashadiisa ayaa loo sababeeyay hargabka Spanish fluga balse baaritaan la sameeyay ayaa la ogaaday inuu u dhintay sunta gaaska iyadoo dhammaan howlwadeenadii fuliyay weerarkaasi ay wada geeriyoodeen codka sagaalaad waa dagaalkii Kwajalein codkani ayaa waxa laga qabtay ciidanka Mareykanka iyo kuwa Japan intii lagu guda jiray dagaalkii badda ee Kwajalein ee dhacay sanadkii 1944 waxa duubay Fred Welker iyo Kenny Heber waxaad maqli kartaa rasaasta dhabta ah ee ka socotay goobta dagaalka iyadoo si toos ah loo duubay Down. Those, my friends, are bullets. bal qiyaas adiga oo duubaya dagaal toos ah dad badan ayaa kabahooda ka carari lahaa malaha codkani bal ila dhageyso waxa aad maqlaysaa inuu leeyahay rasaas badan ayaa dhacaysa laakiin askartu wali waa ay sii socdaan sidoo kale waxa uu intaasi ku daray wiilasheenu waa ay sii socdaan ma arag mid iyaga ka mid ah oo soo noqday codka sideedaad aan idila wadaagi doono waa qaraxii Lancaster bambaanooyinkii Lancaster ee habeenkii September 1943 diyaaradaha Lancaster oo ay saaran yihiin bambaanooyin culus ayaa duqeeyay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka diyaaradda ayaa waxa saarnaa wariyaha BBC-da ee Wilfred Fow Thomas iyo injineer dhanka codka ah Rick Ritzley labadoodu ma aysan haysan damaanad ah inay soo laabanayaan iyo in kale balse waxa ay go'aansadeen in ay duubaan duqeynta iyadoo habeenkii xigtaana laga sii deeyay raadiyaha Britishka bal ila dhageyso codkan Bombs away. There goes the cookie. Okay. Oh, we got lucky going over there. waxa xusid mudan in BBC-du goor dambe ay barnaamij gaar ah ka sameysay diyaaradda Lancaster ee duqeynta ka geysatay Berlin codka toddobaad ee aan idila wadaagi doono waa dagaalkii Bilaalu codkani ayaa waxa qabtay ama duubay wariyaha dagaalka ee NBC Johan Cooper isagoo ka soo tabiyay markabka ciidamada badda ee Mareykanka intii lagu guda jiray dagaalkii Bilaalu ee dhacay September 22 1944 Now general quarters has just sounded. The crew is running to their battle stations, and in just 2 minutes we will start firing. We will start the final bombardment of the beaches before the troops go in. sida aad codkuba ku dhageysateen wariyuhu waxa uu tibaaxayaa in ilaa hadda aysan jirin cid ka dhawaajisay in shaqaalaha markabka ay ku xaroodeen xarumahooda dagaalka sidoo kale waxa uu sheegay in daqiiqad yar kadib ay bilaabo doonto duqeyntii ugu dambeysay bal qiyaas
in aad si toos ah goob dagaal warbixin ugu soo tabanayso adiga oo kaliya sito qalabka wax lagu duubo dadka qaar maxay niyadooda ku soo dhici lahaa bal ina dhageyso codkan. Although I've seen several splashes, I have not seen any boats hit or sunk. codku waxa uu duubay si taxadir leh oo nadiif ah iyadoo ay xusid mudan tahay in gadaashiisu ay xabada ka dhacayso laakiin ogow sida aan horey kugu soo sheegay waa wariye dagaal. codka lixaad ee aan idila wadaagi doonana waa khudbadii sirta ahayd ee uu jeediyay Joseph Stalin bishii November ee sanadkii 1939 journal Swiss ah ayaa daabacay khudbad uu si qarsoodi ah u jeediyay Joseph Stalin inkastoo uu beeniyay inuu isaga laga duubay hadalkaasi. haddana khudbadda ayaa sida muuqata loo jeediyay xubnaha xafiiska siyaasadda waxa uuna u sheegay sida ay ugu faa'iideysan karaan saaxiibtinimadooda Naaziga Jarmalka wuxuuna la wadaagay istaraatiijiyad macquul ah oo lagu horumarinayo colaadda military ee Yurub. sida aan sheegay hadalkani waxa uu ahaa mid sir ah sidaasi darteed ma hayno wax cod ah laakiin waxaan haynaa qoraal laga soo xigtay muhiimadda khudbadda. qoraalka sida tooska shaashada idinka muuqda waxa uu dhigan yahay saaxiib waa danta USSR ee wadankii shaqaalaha in dagaal ka dhex qarxo Reich iyo raasamaalka Anglo-Faransiiska waa lama huraan inaan ku heshiino in la soo gabagabeeyo xaddigii uu soo jeediyay Jarmalku kadibna aan u shaqeyno si dagaalkan uu si daba dheeraado. waa inaan xoojinaa shaqadeena dhaqaale iyo daacad u ahaanshiyaha wadamada uu dagaalka ka aloosan yahay. dabcan dood badan ayaa ka taagan khudbadaasi inkastoo muddo dheer kadib ay keedka gaarka ee Sofiyeetigu ay sheegeen inuu isagu jeediyay. daawadayaal waxaa intaas inoo eg qaybta koowaad ee codadkii ugu yaabka badnaa ee laga qabtay dagaaladii koowaad iyo labaad ee adduunka. tan iyo intii aynu kulmi doona qaybta xigta waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.